dalada isku xidhka haweenka ee nagaad iyo arday ka kala socday jaamacadaha Timcadde iyo New Generation ayaa waxa ay si wada jir u qabteen kulan lagaga hortagayo waxyaabaha dhibaatada u geysta gabdhaha iyo haweenka maskax ahaan caafimaad ahaan iyo jir ahaanba iyadoo maanta ay ku beegneed maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay xuska FGM-ka ayaa kulankani waxa lagaga hadlayay sidii gabi ahaanba loo joojin lahaa gudniinka hablaha waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Ibraahim Aadan waxaanu maanta halkan baaq ka jeedinaynaa ama aanu kor u qaadaynaa in haweenka laga daayo dhibaatada mashruucan waxa ama debate-kan waxa soo qaban qaabisay dalada haweenweynaha ee nagaad taasoo macnaheedu ay tahay inay nagaad badi ama sida xog ku haysan ba u dhaqaaqado xorriyadda haweenka marka waana dhalinyarta gobolka Gabiley iyo nagaad oo iskaashaday waxaan rajaynaynaa inay gaadho meelaheedii oo bulshadeena aynu bedelno oo aqliyan aynu bedelno bulshada waxaanu ku soo koobaynaa in aad sida aragtida noola share gareyseen wacyiga noogala qayb qaadateen in aanu idii xusi doono dhankooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha New Generation iyo Timcadde gudniinka ahaantii dhibaatada iyo saameynta uu leeyahay hadii tahay xaalad caafimaad daro weyn wada ogsoonahay oo waxa weeyaan gabadha lagu ciyaaro maxaa la dhahaayay ilaahay reproductive systemkeedii waxa loo yaqaano amba warshadii wax soo saaritaanka maadaama hooyo tahay ay haweeney tahay ina lagaga ciyaaro gabadhi oo wax loo keeno amba saameyn lagu keeno taas diinteenu way xaaraatimaysay caafimaad hadii bahda caafimaadka tahayna dhan walba oo la xaraatimay laakiin still waxaan ugu sii dhagsaneen dabada ugu sii hanaan sii jiidina waxa weeyaan culturally amba dhaqan ayaan dabada ugu haysanaa sababtoo ah wuxuu keenayaa xanuuno badan iyo sida ay sheegtay imkaba intii goorisi in qofku cuqdad qaado kale oo bulshada dhex gali kari waayo ama wax la qaybsan kari waayo taasna waxa sababay gudniinka marka wax ma aha wanaagsan mana qurux badna qof hadduu mar dhaawac ku keenayo xanuunana way ugu xigayaan marka qofku ama qofka hooyada waxa markuu yiri qof lagu sameeyay hadhow ayuu caqabad ku noqonaya marka uu mush qabato kale waa dhibaato ka dhex jirta bulshadeena gaar ahaan saameynaysa dumarka runtii waxaan ka aaminsan inuu yahay caado khaldan oo dadkeenu aamineen ayna sameeyeen muddo dheer oo adag tahay in si fudud ay ku joojiyaan ay tahayna in laga wacyigeliyo lagana hortago sidii u joojin lahaayna laga hawlgalo marka caqabadaha uu ku leeyahay waxa weeyaan qofkii imika moraalkii oo kale qofkii laga dilaya sidoo kale waxay sameynaysaa inantii ama mustaqbalkeeda dambe ayaa lagu ciyaaraya marka imika xitaa diiniyan marka lama sheegin ama de ma maqal aan ahaan fikirkeyga ma maqal aayad cad oo sheegaysa ama xadiis sheegaya ma maqal laakiin halkay ka keeneen Soomaalidu waa maanta loo baahan yahay ama sidii looga dabarjar lahaa waxaan kula talinayaa dawladda inay ka hortagto oo ay sameyso dad dabagala oo ka shaqeeya si ay soo qaban lahayn dadkan la dhuumanaya horta qofkan sameynaya isagoo la dhuumanaya kala dhuumanaya dadkii meel kula dhuumanaya horta inuu technique-kan waxan khibrad u lahayn ayaa dhici karta oo qofkan bini aadanka ee uu ku takrifalayna ay dhaawac soo gaarsiin karo maadaama aanad u haysan caafimaad wixii loogu talagalay qofka jeermiska ka ilaalinay iyo waxyaalo fara badan kolka waxa iman kara inuu jeermis hoos raaco qofkan dumarka saasna ay kula falgasho ilaa iyo weynidiisa waqtiga ay soo raago ama ha soo degdego ama ha kaba raago waxa dhici karta in qofkan dumarkii markii uu uur qaado gaadho xilligiisii dhalmada inuu ilmaha yar ay ku adkaato dhalistiisii ama hooyadii ku raacdo oo ay ku dhimato ugu dambeyntiina abwaanad Hani Saleebaan Cabdi abwaanad Laara ayaa halkaas ku soo bandhigtay tix suugaana habluhu waa hooyada walaal iyo habaryarta haldhaadii aad dhashee maxaad u halaynaysaa maxaa hilinkooda inaad hoojisaan ku faray ragow haad baad tihiin markale halaq baad tihiin habeen dumay baad tihiin weliba horar baad tihiin dhib iyo hagardaamo iyo huqiyo ciil baad tihiin haweenka waraaba dhib iyo hagardaamo iyo huqiyo ciil baad tihiin haweenka waraaba iyo haadkaa cunayaa tihiin siday kuu soo habeen horaad kuu soo dhasheen hoobayda ku seexiyeen hurdada kuugu heesayeen hugaaga markuu dhaqeen naftaada hagaajiyeen
weliba hagarli'i qudhiyo hidaba adig kuu hureen haddaanad dareemahayn abaal ugu hiilinayn ragow hidihii qubtee jabkiya hawshaada iyo waxaad habla soo dhibteen kufsiya la hawaysateen haddaanu dubkaaga iyo damiirku naxayn habeen midkii hilbaheeda cunay midkii uga hiilin lah hadduu xeer iyo odhaah xaqeedu hog uu ku rido cadaaladna aanay helin weliba hiif loogu daro sidee halis uga baxnaa adduunku halkuu degana sidee ku hawaysanaa sidee huqda uga kornaa wixii hadaf aan jeclaa hankiyo yoolkaan lahaa hamigii noloshee dhammaa wixii hawl ii qornaa qorshiyo himilooyinkii haddaad ka hor joogsataan haddaad liidaan hablaa takoortaan oo hodaan haddaad dibudhaca bartaan jahliga u horseedaysaan aqoon-yahankii hagraday siyaasi u hiilinayn shuyuuqduna kaba hadlayn xaqoodaa hoos la dhigay ilaah baa heegadiyo hawada sare keenayee heeryada dulligeed sidaan dhibkaad ku hilaabantiin naftiina habaaska taal habiyo ka qorshaysta talo hankiinana yoolka bara ayaan leeyahay haween Rashid Baar Adeer TV Hargeysa.